السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل والباد كلا جوكتان كسو دواده برتا جميعكم اوفيشال وبرعانا وبرتا بلشده يكو كلمان وبرتا داوديال آد هيلوغا اي قلبغا آد كو هيسان مركا لكوسو سيقا كسو دواده برتا ساحبكين داوديال maanta hadduu eebweyn raal ka noqdo waxaan ka hadli doonaa daawadayaal barnaamijka tartanka hibada ee jiilka cusub oo ah tartan dhowaanahan ka socday magaalada muqdisho oo halkaas la iskugu keeno dhalinyaro kala duwan isla markaasna kusoo bandhigaan qof walba waxa ka dhex guuxaya markaasna dad badan ayaana loo gudbiyaa muuqaalada markaasi dhalintaas ay ku tartamayaan haddaba daawadayaal barnaamijkaas ayaan dul istaagi doonaa oo calaamada va ay soo qabatay barta Jamaica official si maalinlaha daawadayaal hadduu eebweyn raal ka noqdo wixii markaas taagan aad xiiseenaysaan ayaan kusoo bandhigi doonaa mar kale intaan daawadayaal barnaamijkan u gudagelin iyo falanqeynta iyo ka sheekeynta mawduuca maanta ka horna haddaan ugu ceebeenin had barta wixii la isku jeclaa subscribe-kii aan ugu ceebeenin kaas waa muhiim oo lagamaba hadlaba sheerna iska dhawo muuqaalka sii sheer gareey waxaa laga yaabaa inuu u galo qolada aan ka hadlayo daawada muuqaal walba aan soo gudbiyo iska sii sheer gareey qofka uu qoseeyo si u gaaro isa saxo sii sheer gareey like-tana taasna hee war maba la geli karayo gambalalkana furo si mar walba muuqaal walba cusub aan soo gudbiyo qofka ugu horeeya ee daawada u noqoto gambalalka kor dhilalo kasii iska furo subscribe-kan mar kale waa ku celinayaayo hanugu ceebeenin baalkaas waa baalka muhiimka waa kii ugu muhiimsanaa hanugu ceebeenin daawadayaal wagaag daawadayaal marka waxaan doonayaa marka sidaan hore u kugu sheegaba in aan daha ka rogo barnaamijkan dhawaalahanba qof walba sida taleefanka sidaa ugu eegayo ayaan rabaa inaan markaan dul istaago horta barnaamijka waxaa la yiraahdaa tartanka hibada jiilka cusub ayaa la yiraahdaa marka dhalin kala duwan ayaa lagu martiqaadaa dhalin kala duwan ayaa lagu martiqaadaa marka halkaas ayaa la yimaadaa qof walba wixii ka dhex guuxaya ayuu iska qaadaa qaar baa heesihii hore aadaya qaar baa kuwa dhexa soo qabanaya qaarna kuwa imanka taagan oo 2019ka ayay sida kubadda cagta ayay ugu baashaalaan hase ahaatee marka saddex guddi ayaa halkaa fadhida saddexda guddina qof walba markuu heesta qaado waxaa la leeyahay heestaas hebel ayaa ku luqeyn jiray laxanka sidaa ayuu ahaa toonkii sidaa ayuu ahaa adigu maada keenin toonka ayaa dabcan halkaas ka aaday ama laxanka ayaa halkaa ka aaday ama ninkii heesta lahaaba maada soo dhaweynba maadaama tartanka hibada jiilka cusub la yiraahdo dhalinta halkaasi soo istaagaysa iyagu heesaha ma lahan ee heesa la qaada ayay qaadaan marka saddexda guddiga ee halkaa fadhida daawadayaal qof walba markuu heesta qofka uu qaado uu saas u eego ayuu wuxuu leeyahay anigu dhankayga maya qof kale ayaa mikrofoonka qabsanaya wuxuu leeyahay anigu dhankayga ha qof kale ayaa mikrofoonka qabsanaya wuxuu leeyahay aniguna dhankayga waa maya marka ha iyo maya waxaa loo leeyahay wax kale maahan haddii saddex mar ha isku kaa raacdo wareegaas waa ka gudbaysaa haddii saddex maya isku kaa raacdo waa adeer waa isa soo adkeeyo mar kale tijaabo kale iyo dadaal kale soo sameey marka dhalintaasi halkaas imaanaysa ee ka hadlaysa waxa ka dhex guuxaya ee fanjaceelka ay soo gudbiyaan ayaa daawada marka tartanka hibada jiilka cusub ee barnaamijkaas loogu magac daray aniga horta dhinacyo kala duwan ayaan ka eego oo calaamada va ee Jamaica ayaa soo qabatay dhinacyo kala duwan ayaan ka eego maadaama horta tartan markii la qabanayo daawade dad badan ayaa horta siyaabo kala duwan daliilayay tartankaasi sidiisaba dad baa dhahayay dadkaasi hal degmaa laga soo xulaa maadaama qofka markuu goobta soo istaago oo leeyahay anigu waxaa la yidhahdaa hebel waxaan ka socdaa degm hebel waxaan ku tartamayaa hees hebel baa laga qorayaa
qof kale ayaa imaanaya anigana wuxuu leeyahay waxaa la yihahdaa hebel hebel degme hebel ayaan ka socdaa hees hebel ayaan ku tartamayaa okay dadka marka noocaasa dad badan ayaa qaba horta in tartankan sidiisa markii loo fiirsho dadka tartamaya hal degma laga soo xulo dad baa qaba hagaag dadna waxay qabaanba marka degmo laga soo tago dhalinyarada halkaasi imaanaysa qaar toonkood uu fiican yahay oo meeshii lagu tala gaaraya dadkii marka dhalintaas noocaas ahaydna in si kale loo reebo qaar kalena waxay qabaan in qofka markii si loo fiirshaba heesta isaga uu ku fiican yahay markuu soo bandhigo iyadana laga shuureeyo dib loo celiyo marka guud ahaan marka si loo fiirsho tartankan isaga shaqsi ahaantiisaba horta qaabka loo qabtay marka la fiirsho horta waa qaab macquula laakiin qaabka loo gudbayo iyo qaabka loo harayo ayaa calaama su-aal weyn ay ka taagan tahay calaama su-aal weyn ayaa ka taagan horta guddiga naftigooda aan ka hormaro guddigu siyaabo kala duwan ayay iskugu jiraan badanaa 3 nin ayaa halkaas soo fadhiisata mid ka mid a waa wada naqaanaa waa shimaali waa fanaan hore ayuu ahaan jiray fanaan hore ayuu ahaan jiray ninka kalena isagana waa abwaan ninka kale kuusoo harna waa weriye marka aniga Jamaica official ahaan waxaan qabaa maadaama bartaan ay taa barva ee wax walba ay soo qabanayso aniga waxaan qabay in halkaas la soo fadhiisiyo 3 nin oo fanaana ma la heli waaye 3 nin oo abwaana wax kale maba jiraan sababtoo ah 3 nin oo weriye meesha maba la soo fadhiisi karayba waayo wariyuhu daawada sidaan wada ognahay wuxuu ku fiican yahay in wax xirfadda skillka isaga oo bartay uu gudbiyo sababtoo waa weriye warar iyo warbixino iyo sheekooyin waxaas kaliya ayuu ku fiican yahay laakiin fan waxba kama garanayo marka ma dhihi karayno in 3 weriye halkaas la soo fadhiyo ayaa wacan ma dhihi karayno laakiin waxaan qabay in halkaasi 3 nin oo fanaana la soo fadhiisiyo ama la soo fadhiisiyo 3 nin oo abwaana si markaasi tartankaasi daawada u noqdo tartan isaga dhan isku dheelitiran isku dhameystiran dhan walba laga habeeyey loo hagarbax taas waan adinkana inaad la qaadateen waa dareemi karayaa adinka daawada iyo daawanaysid inaad la qaadatay boontigaas aan tilmaamay waa dareemi karayaa hagaag dhanka dhalinyarada oo soo noqdo dhalinyarada soo tartamay dhammaantood horta waxaa ka wada muuqda diyaar garow aada u weyn aada u fiican ee waqti soo geliyeen iyagu markay si loo fiirsho qaarkood waxaan u arkay dhankayga hal dhaliil ayaan u hayaa oo ah qofka markuu oo soo diyaar garoobayo stageka ama meesha loogu talagalay markuu soo istaago iyagana waxay la habbooneed in qof aada isku soo diyaariyey heesta uu qaadeena aada u soo xifdiyey laxankeeda iyo miraheeda iyo toonka si markaasi wax dhammaystiran oo dheelatiran oo tafatiran oo macquul ah oo halkaas ula soo shirto dhalinta qaarkood marka waxaad moodaa qaarkood diyaar garoobad inuu ku jirno taleefonta laga celiraayay tartan noocaasa jira lasoo wada bajaaj ama beel wuxuu awoodi karo soo raacay goobta iska yimid qaarkoodna waxaa arkaysaaba sidaa aragteen naftigiinba qofka markuu meesha istaago heesta qeyb inta ugu horeyso kale markuu ka qaado in la leeyahay stop joog haye intee ka socotay meel hebel magacaaga muxuu ahaa maya isku raac oo hore ka tago marka waxaa keeni karaya iyaga naftigoodaba 30% mise 40 boqolkiiba aan dhahno 50% aan dhahno dhammaantood diyaar garoob badan kama wada muuqdo laakiin way wada dadaalayaan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 marka laga soo tago inta kale xooga waxaad moodaa in si degdeg ah goobta ay ku yimaadeen marka bartan Jamaica official waa bar daawada kuu soo bandhigaysa wax markaas taagan ee la doonay in laga hadlo sababtaan ugu magac bartan va wax kale ma aha wixii markaas taagan ayaa idin soo qabanaya oo adinka aad xiiseynaysan tartankan waa laga yaabay in dhaliilo badan aad u heyseen in siyaabo kala duwan aad u arkayseen xataa qaar badan waxaa laga yaabaa in ay goobta tartanka u ka dhacayaba in ay taleefoon ay ka yihiin ama goobta ay ku taalay in aqoon oo dhammaantoodna ay fanka ku fiican yihiin dad badan ayaa waxaa jira daawad ogow codka ay u dhasheen aad yaabisid qaar badan waxaa jira hiibada ku duwan aad yaabisid marka waxaa habbooneed in tartanka la ballaariyo stiikaro la daabaco magaalada lagu dejiyo beelada
baqaaxyadaha wadooyinka lagu dhajiyo layira tartan noocaasaa jiree ee adeer fankaaga hadduu fiican yahay ama taalanta aad leedahay goob hebel ayaan ku naalnaa ee taleefoonadaas ayaana leenahay nala soo xiriir goobtan waa lagu tusiyaa marka tartanku wuu weynaana laakiin xoogaa waxaad moodaa wixiina scoob laga dhigay meelo dadkoonan xiriir badan haysan inta yartii la yaqaana layska soo qabta marka iyadan dhaliishaas waa jirtaa oo daawadayaal badan inay la qabaanna waa rajeyn karayaa marka Jamaica Official ogow maahan waxaan wax usoo bandhigay xumaan maahan waxaan usoo bandhigay in hore loo socon maahan laakiin waa loo baahan yahay in dhaliil la soo gudbo waa loo baahan yahay in wax la iftiimiyo waa loo baahan yahay in wax la cabiro waa loo baahan yahay in aragtida qofka ka dhex guuxaysana lasoo bandhigana waa laga maarmaan marka tartanka hibada jeelka cusub barnaamijkaas almuhim waxa aan doonayaa inaad la fahantaan qaabkan wax wado inaad la dareemi karaysaan tartankaas xoogaa waxaad moodaa in ka fiirsasho badan ay jirin xagga guddiga xagga dhalinyarada iyo siyaabo kala duwanba intaan iisoo gudbina waa rajeyn karayaa inaad qaadateen maadaama waxa la soo gudbinayo habboonta in la qaato dad badan ayaan rajeynayaa in ay markay muuqaalkaba arkaan durbaba xanaaqi doonaan adeer waxbaa xanaaqin bartaan waa bar u taagan calaamadda va ee kubadda cagta taqaan waa aragtay gool markii la dhaliyo dada ciyaareen intee ma gool calaamadda alaada ala soo fiirnaa garsooriga xaguu tagaa dheer penalty ama gool aheeda ayaa leeyahay haye marka waxa calaamaddaas loo kan waxay tahay dhacdada ayay soo qabataa markaan bartaana waa bar YouTube kuuna soo qabanaysa dhacdada markaas taagan kaamiradeeda CCTV-deeda saas ayay u wareegaysaa haddii ku soo qabato adeer waxba xanaaqin haddii ku soo qabato waxba xanaaqin that's why aan u macdara va calaamadaasna haddaad gar daran tahay waa ku soo dul istaagaysaa haddaad gar darneenna wixii kuu soo qabato maba jirtaba sababtoo ah markii u aragtay kubadda ciyaaryahan difaacay gacantiisa ku dhacdo oo la murmo iyadaa la aadaya markaas waxaa leeyahay gacan ahayd okay inaad ila dareentay oo kubadda aad daawatana waa rajeynayaa waxaan tusaalahaas kugu soo qaatana barteeda waa va maadaama marka haddaa maanta aan tartankaas hibada jeelka aan soo qabtana berina qof kale madax ha noqdo siyaasi ha noqdo shacab ha noqdo fanaan ha noqdo wadaad ha noqdo calaamadeeda va saas ayuu wareegaysaa maalin ayuu kugu imaanaysaa marka intaas ilaali kartiis ilaali bar kale daawada bartaan la socodkeeda waan kaaga mahad celinayaa iyo la jaan qaadkeeda hadde hanugu ceebeenina mar kale aan ku celinayaa baalkii subscribe-ka hanugu ceebeenina waa kan ugu daran hanugu ceebeenina kaas iskaaga dhuf marka barteeda aad aragtidba iskaaga dhuf ninka maalin wax cusub ayuu halkan kuu keeni doonaa waa nin cajiiba waa nin shaqo taga bartaan maalin walba taleefankaaga ama computerkaaga ayay kugu soo dhici doontaa hasaatee hanugu ceebeenina baalka subscribe-ka la yihahdo hanugu ceebeenina adeer haddaa i daawanaysid sheerna iska sii dheho qolada aan ka hadlaayo muuqaalka ha gaarabe iska sheer garay laagna iska dheh commentigana haddaad aniga dhaliilaysay haddaad i ammaanaysana iskaga soo qor gambaleelkana iska furo muxuu kaa dhibaya gambaleelka iska furo si muuqaalkayga uu kuu soo gaaro ku mahadsanid la jaanqaadka barnaamijka nabadgelyo